السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalintii afraad ee challenge-geeni soddonka maalin aan kala nirnay youtube-ka soddon shorts. Markaasi waa challenge aan soo bilaabay 3 maalin ka hor taasoo aan ugu talagalay inaan ku tijaabiyo youtube shorts. maadaama aan arkay dad badan oo isku dayay oo lacag ka sameeyay youtube shorts, ana waxaan go'aansaday in aan soo geliyo 30 maalin 30 muuqaal oo isku xiga oo youtube shorts ah, taasoo markaasi inaan ku tijaabiyo haddii aan 30 maalin gudahoodii aan ku sameyn karo lacag, maadaama aan arkay dad badan oo isku dayay youtube shorts. youtube shorts haddaadan la socon waa muuqaalada verticalka ah. waagii hore youtube wuxuu dad lacag ku siin jiray muuqaalada long form, laakiin markii tiktok uu soo kordhiyay muuqaalada verticalka ah, youtube wuxuu soo kordhiyay muuqaalada shorts. kadibna dadka creatorska ee sameynaya muuqaalada shortska uu abaalmarin lacag siiyo si dad badan ay u sameeyaan muuqaalo shorts fara badan, sidoo kale in youtube-ka ay dad badan joogaan. maadaama waxaan uu tartan ka dhexeeyo, youtube wuxuu go'aansaday markaasi in asal tartanka qayb uu ka galo soo isticmaala markaasi awoodda lacag. sidoo kale ujeedada challenge aan sameeyay waxay ahayd in aan 30 maalin isku day inaan sameeyo muuqaalo xiriir ah si aan u barto wax lagu magacaabo consistency. youtube-kan waxaan isku dayay dhowr mar inaan muuqaal soo geliyo oo joogto ah, laakiin waan ku guuldareystay sababtoo ah caajis iyo dib u dhigasho wahsi iyo qorshe la'aan ayaa waxay sababtay in aan joogtin waayo sameynta muuqaalada youtube-kani. marka hadda waxaan go'aansaday markaasi in 30 maalin aan muuqaal joogto duubo si nafteeda aan u baro xagga joogtaynta. maadaama hadda aan isla fahnay challenge-gan waxaan ka waday iyo sidoo kale waxa loola jeedo youtube shorts, hadda marka waxaa u gudbi doonaa sii wadida barnaamijkeeni challenge-ga ahaa ee 30 maalin aan gelinay 30 youtube shorts. marka maadaama ay tahay maanta maalinta afraad, waxaa noo qorshaysan in muuqaalkii saddexaad aan gelinay in aan jeegayno marka hore xagga performance-giisa uu noqday, kadibna hadafka labaad oo ah markaasi in aan gelino muuqaalka afraad maanta. laakiin inta aanan u guda gelin sii wadashada maalinteeni afraad, waxaan ka codsanayaa in marka hore muuqaalkan aad like saartid. marka hadda isla fiirino markaasi muuqaalkii shalay aan gelinay xagga performance-giisa iyo views-kiisa siduu noqday. marka hadda waxaan dul taaganahay computer-keedii, waxaa noo baahan markaasi in aan muuqaalkii shalay aan gelinay aan jeegareyno xagga performance-giisa iyo views-kiisa. marka aan fiirino marka muuqaalkaas siduu noqday. marka haddaan ku dhufano youtube-ka soo kicino, kadibna aan ka doorano meeshan channel-keena, kadibna aan ku dhufano view channel. qaybta kor haddaa fiirsid subscriber-keena xalay 10 ahaa ama shalay, maanta 19 noqday. meesha waxaa ka cad markaas hal qof kaliya inuu ugu soo kordhay subscriber-keena. okay, haddaan hoos sii socoto aad fiirsid muuqaalkana, waxaa arkaysa muuqaalkeena markaasi inuu helay 314 views ama 14 qof inay daawadaan, 314 qof inay daawadaan muuqaalkeena saddexaad aan gelinay. marka performance-giisa u jeeda haddii aan gudaha u sii galno markaasi analytics-ka daan fiirno youtube studio daan ku dhufano, marka muuqaalka arkaysidba wuxuu keenay 316 views ayuu keenay. subscriber-kan waxaa waaye markaasi 1 qofood, hal qof muuqaalkaani subscriber noo saaray. marka muhiimada waxaa waaye muuqaalkaasi performance-giisa uu ka fiican yahay muuqaalkii kale kan labaad. muuqaalkooda ugu fiicnaa performance ahaan sababtoo ah ku dhawaad 2000 qof daawatay. marka weli joogi doona insha Allah challenge sii wadayna haddii Ilaahay raali ka noqdo. waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda natiijooyinka fiican inaan arki doono haddii Ilaahay kala noqdo. maadaama isla aragnay muuqaalkii hore performance uu noqday, hadda marka waxaan gelaynaa qodobka kale ee xiga oo ah markaasi in muuqaalka kale xiga aan gelino youtube-ka si challenge aan sii wadno. marka hadda waxaan gelin doonaa muuqaalkii kale ee xiga ee maalinta afraad si challenge aan sii wadno. let's go markaasi. marka hadda waxaan ku guuleysanay labadii hadaf maanta aan sameynay oo ah markaasi in muuqaalkii hore performance-giisa ogaano siduu noqday, waana soo aragnay muuqaalkaasi siduu noqday performance-giisa. sidoo kale hadafka labaad aan lahayn wuxuu ahaa in muuqaalkii kale afraad ee xiga aan gelino. maadaama challenge-gan uu yahay 30 maalin, insha Allah ma nii jabi doono, waxaan sii wadi doonaa markaasi challenge. marka haddii aad soo daawatay muuqaalka ilaa intaan, waxaan kaa codsan lahaa muuqaalka aad like saartid si muuqaalkan dad badan uu gaaro, sidoo kale in channelka subscribe aad noo saartid, iyo sidoo kale waxa ugu muhiimsan markaasi inaad comment ka bixisid. marka
waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Waxaan ku kulmi doonaa markaasi muuqaalka xiga ee maalinta 5 بإذن الله. السلام عليكم. Goodbye.